sida loogu diyaar garoobo aakhiro. Nolosha dunida waa mid ku meel gaar ah, waana meel lagu tijaabiyo qof walba camalkiisa iyo iimaankiisa. Diinta Islaamku waxay inoo tilmaantaa in qofka bini'aadamka ah uu ugu dambayn dhiman doono, loona baahan yahay inuu si joogto ah ugu diyaar garoobo maalinta uu la kulmi doono Rabbigiisa. Xasuusta geerida. Geeridu waa xaq, waana arrin qof walba oo nool uu la kulmi doono. Waxaa muhiim ah in aan isxasuusino geerida si aan u hagaajino camalkayna, loona diyaar garoobo maalinta aan qabriga galayno. Camalka wanaagsan. Maalinta aan dhimanno, camalka wanaagsan ayaa ah waxa keliya ee na anfici doona. Sidaas darteed, waxaa muhiim ah in aan samayno wax wanaagsan oo la xiriira Alle sida salaada, soonka, sadaqada iyo dadka oo loo horseedo wanaaga. Qabriga. Qabriga waxaa lagu gelin doonaa keligaa, qofna kuguma raaci doono. Taasi waxayna xusuusinaysaa muhiimadda ay leedahay in la sameeyo camal wanaagsan oo lagu xisaabtami karo marka la gaaro maalinta qiyaame. Ka fogow waxyaabaha xunxun. Diinta Islaamku waxay ina baraysaa in qofka muslimka ah uu ku dadaalo inuu ka fogaado waxyaabaha sababi kara in qabriga lagu cadaabo, sida xaqdarro, been, dhiig daadin, dhac, isku dir qabaa'ilo meel wada dega, iyo waxyaabo fara badan oo xumaan ah. Ka faa'iidaysiga cimriga iyo caafimaadka. Cimriga iyo caafimaadka qofka waa fursad uu ku kasban karo ajar iyo wanaag. Waa in aan wakhtigeenna iyo caafimaadkeenna uga faa'iidaysanno waxyaabaha na anfici doona adduun iyo aakhiro labadaba. Sida loogu diyaar garoobo geerida. Salaadda Ilaahay. Si joogto ah u og salaadda wakhtiyadeeda. Akhlaaqda wanaagsan. Ka fogow xumaanta oo samee wanaag joogto ah. Caawinta dadka kale. Ka qayb qaado samafal iyo caawinta kuwa baahan ama tabarta yar. Istighfaarta iyo towbad keenista. Si joogto ah Alla ugu magan gal camallada xun oo towbad keen. Aqoon kororsi. Baro diinta Islaamka si aad ugu dhaqanto si sax ah. Xusuus. Ogow geeridu maaha dhammaad, balse waa bilowga safar dheer oo aakhiro ah. Sidaa darteed, ha hilmaamin in noloshaadu tahay fursad qaali ah oo aad ku kasban karto farxadda joogtada ah ee jannada. Ilaahay ha nagu sugo jidka toosan, aamiin. Mahadsanid daawashadaada. Fadlan ha hilmaamin inaad like iyo subscribe dhahdo si aad ula socoto muuqaalo kale oo faa'iido leh. Ku dhufo badhanka oo nagu biir maanta.